hadda waxaan ogsoonnahay in dunida isku soo ururtay shortcut taasoo lagu magacaabay in dunidu tahay tuulo yar oo meel wada fadhida ayna sababtay tiknoolajiyadan xawaaraha sare ku soconaysa ee wax walba soo koobtay saas way tahay haddaba haddii aad rabtid inaad macluumaad cusub baratid waa inaad haysatid meel aad macluumaadka ka raadi karto haddaba muuqaalkeena waxaan ku sheegi doonaa amba iskula wadaagi doonaa saddex website oo ka caawinaya inaad macluumaad cusub heshid sidoo kale saddex website waxay ka caawin doonaan saddex faa'iido oo kala duwan haddii aad u baahan tahay inaad data analysis qurux badan samaysid waxaad isin doontaa mid ka mid ah website halkan ku sheegay sidoo kale haddii aad tahay macallin amba shakhsi presentation sheediya sida Zoom oo kale ka sheediya goobaha live ka sheediya muuqaalkan waxa ku jira hal website oo adigu kaliya ku saabsan kuna caawinaya sidoo kale haddii aad tahay shakhsi filmmaker amba videographer halkan waxa kugu jira hal website oo ku caawinaya oo isku wadaagi doono muuqaalkeena haddaba ka hortayna muuqaalkeena bilaabin waan jeclaan lahaa in kanaalka subscribe sidoo kale aad la socotid taxanahan ku soo ururno website faa'iido leh ee halkan soo gelin fadlan muuqaalkan kaliya like website kan magaciisa waxa la yiraahdaa whiteboard website kan wuxuu ku anfacayaa marka aad Zoom ka jeedinaysid casharaan sidoo kale waxaad ku diyaarin kartaa presentation qurux badan haddaba website kan marka ugu horreysay aad soo furtid ba waxa ku soo bixi doona wajigan cad xakan hoose waxaad ku haysataa toolskii aad u adeegsan lahayd samuuradan cad haddaba halkan waxay ku tahay samuuradii adigoo shape-ka aad u baahan tahay sawir kara sidoo kale waxaad helaysaa laynankii iyo shaybabkii kala duwanaa ee aad wal baahan lahayd website-kan haddaba website-kan magaciisa waxa la yiraahdaa whiteboard runtiina wuxuu aad ugu soo dhow yahay samuurada caadiga ah haddii aad u baahan tahay inaad qoraal caadiya iyo farsaxo caadi aad samaysid halkan ayaad ku samayn kartaa sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad arday wax u sharaxdid halkan ayaad ugu sharaxaysaa haddii samuuradanu marka hore ka buuxsanto waxaad samayn kartaa inaad iska fogeyn kartid soona dhaweysan kartid sidoo kale aad dhinaca doontid aad durkisan kartid sidoo kale waxaad dhexgelin kartaa qoraalka aad u baahan tahay oo halkan ka soo dhex muuqanaya aanad kordhin kartaa inta marin ka tagno waxaad bedeli kartaa sidoo kale colorka faraha aad adeegsanaysid laftarkiisa isagana waad bedeli kartaa haddaba saas shaybabka kala duwan suurtid shaybabka wixii diyaarsan salaynka oo kale wadhanaysa laakiin shaybabka inta wixii ka soo hara adiga gacantaada ku samaysanaya tusaale ahaan oo kale haddii aad u baahan tahay circle amba triangle adaa samaysanaya kadibna iyada sidii aad u baahnayd noqonaysa kaliya waa inaad madaxa isku saartaa amba si loogu talagalay si u dhow inaad soo wartaa haddii aad u baahan tahay goobo waa inaad goobo saxan ah isticmaashaa haddaba website-kani waa website aad iyo aad u faa'iido leh waxaana ku anfacaya haddii aad tahay qof PC screen-kiisa wax ku jeediya amba sidoo kale raba inaad data ku diyaarisid halkan haddaba website-kan ayaa ku anfacaya waana website faa'iido leh in badanna waan arkay dad iyo badan oo isticmaala website-kan runtiina waxaan ogahay in haddii aad website-kan isticmaashid uu ku anfaci doono Antolis website-kan wuxuu anfacayaa arday kasta iyo shakhsi kasta oo raba inuu shakhsi ahaantiisa amba naf ahaantiisa wax cusub barto haddaba website-kan kaliya wuxuu ku takhasusayaa amba uu xoogga saaraya inuu ku baro calaamadaha iyo symboliska yayna oran symboliska laakiin se wax kasta oo calaamado meelad ku aragtid website-kan gudihiisa waad ku arkaysaa laba mid tusaale ka soo qaadano amba laba mid kamid ah sii galo website-kan ma quseeyo wax khaas ah laakiin se waxyaabo badan ay ku jira sistemo badan ay u sharaxaya haddayna tagno kaliya koofiyadaha inta badan waxaan aragnaa marka caafimaadka la joogo waxa la xidhaa koofiyad marka la joogo dhiska waxa la xidhaa koofiyad qolada dabdaminta way xidhaa koofiyad walba color gooni ayaa la xidhaa runtii wax kaaga yar baahan tahay inaad jirbaratid si aad ugu muuqatid qof reer magaalo haddaba hadeen kale koofiyadaha halkan wuxuu ku sharaxaad yar oo kooban ayuu ka siin doonaa waxaanu ku leeyahay koofiyad walbaana waxay bixinaysaa macno gooniya haddaba koofiyada yelowga ah wuxuu ku yiri waa tognaanta ayaa loo isticmaalaa sidoo kale xaggana iyadan waad garan kartaa oo hal abuurnimada iyo waxyaabo noocaas oo kale ayaa loo isticmaalaa haddaba koofiyada casaankaana waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha emotionka ah white hat-ka iyo black hat-ka iyo blue hat-kana mid walba wax loo isticmaalo halkan ayuu kugu soo qoraya haddaba dhammaan lixda koofiyad ee bartankaaga muuqda lixdanba waad garan kartaa meelaha laga adeegsado inta badan koofiyadan waxaa loo adeegsadaa dhiska iyo waxyaabahaas oo kale sidoo kale tanna waxaa loo adeegsadaa dabdamiska electricity-ga sidoo kale koofiyada waxaa loo adeegsadaa biyaha iyo waxyaabahaas oo kale haddaba koofiyadahan intaanan kaaga muuqda koofiyad walba iyo macnaheeda iyo isticmaalkeeda ayaa bartankaaga muuqda saas oo kale tool walba oo bartan ku jira wuxuu ku siin doonaa toolkan waxa loo adeegsado sida loo adeegsado iyo waxa uu faa'iido leeyahay
haddii system kan soo galay isagana ku qoran tahay concept mapka isagana sidoo kale waa sharaxaad waxaanu sharaxayaa waxyaabaha loo adeegsado imika sida tusaale ahaan oo kale userka teamka documentiga iyo waxyaabahan oo kale ayuu ku sharaxayaa runtii haddii aad website-kan si fiican u fahantid amba aad isku dayday inaad wax ka baratid wax badan ayaad ka baran kartaa halkan imika intii uu halkan inoogu soo qoray ayuu haddana halkan si fiican inoo sii kala fahansiinayaa mid walba midku ka sii hooseeyo iyo mid walba midku hoos tagayo balan isku dayno in haddana mid kala dul tagno haddii tagno halkan inuu leeyahay xaaladaha angalayadana sidee u shaqeeyaan xaalad behavior impact waxyaabahaas baynu inoo soo sheegay kadibna halkan hoose ayuu sharaxaad inuu siin doonaa haddaba website-kan faa'iidadiisa waxaan filayaa inay la fahanteen arday how amba yaanad ahaan website-kani weyn anfacaya kan waa mid ka mid ah website-yada ugu quruxda badan leh kuwa aynu kusoo wadaagnay casharkeena amba muuqaalkeena website-kan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Flourish website-kan waxaa loo adeegsadaa in lagu soo bandhigo daatada iyadoo lagu soo bandhigayo charts qurux badan website-kan waxaa adeegsada dalalka BBC-da iyo sidoo kale wargeysyada caanka website-kan waxaa lagu soo bandhigaa wax walba oo la soo geliyo social media haddaba website-kan wuxuu ku siinayaa data analysis qurux badan oo aad iyo aad u qurxinaya waxa aad rabtiin inaad ku soo dhigtid inaad ku soo bandhigtid data ahaan haddaba imika sidan oo kale in badan wada aragtay iyadoo countrieska loo adeegsanayo ciidamadooda iyadoo diima loo adeegsanayo halkan ayuu daatada rabtiin inaad ku soo bandhigtid ku kala bedelaysaa haddaba website-kan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Flourish website-kan waa mid ka mid ah website-yada ay ahayd inaad hore u baratid si aad daatadaada ugu soo bandhigtid si qurux badan aad u heshid charts qurux badan oo daatadaada boqolkiiba boqol turjumaya haddaba website-kan waxaad ka helaysaa charts aad u qurux badan oo midka ka duwan yahay sidoo kale waxaad soo bandhigaysid waxay u eegyihiin amba waxay yihiin wax quseeya ayaa website-kan dhex helaysaa haddii aad soo bandhigaysid maapka iyo wax la xiriira dhulka website-kan waa ka helaysaa haddii aad la soo gelinaysid sidoo kale dhismayaalka iyo tartan dhismayaasha waxyaabahaas oo kale ka dhexeeya website-kan waa soo gelin kartaa haddaba website-kan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Flourish kaad u baahan tahay aad dul tegi doontaa halkaas ay ku qoran tahay make your own ayaad taaban doontaa kadibna waxaad bedeli doontaa kaliya intan uga bedeli doontaa xogta intaad u adeegsanaysid iyo wixii kaaga baahdo data amba datadaada ayaad kaliya ku qoran doontaa haddaba website-kani waa mid ka mid ah website-yada loo adeegsado in lagu soo bandhigo daatada amba xogta wax si qurux badan haddaba website-kan ayaa ka anfacaya inaad ku soo bandhigtid xogtaada haddii aad ku soo bandhigi lahayd Excel-ka iyo waxyaabahaas oo kale website-kan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cofa waa arta oo laba dhacaysa haddaba website-kan wuxuu la mid yahay website-yada kale ee muuqaalada laga helo laakiin website-kan wuxuu kaga fiican yahay dhammaan muuqaalada bartan ku jira oo dhan waa free kaliya wuxuu baad taaban doontaa calaamadda download-ka waxaan toos kugu geli doonaa PC-gaaga ayuu kugu geli doonaa PC iyo labada waad ka doontay ayaad adeegsan kartaa website-kana waxaad ka helaysaa sawiraan muuqaalo intaba kaliya waxaad u baahan tahay searching ayuu baad taaban doontaa si kuweeni hore oo kale haddaba website-kan wuxuu ka mid yahay website-yada marka aan damacsanayn muuqaalo siir oo fudud kula soo dago inaan isaga imaado kaliya aan waxaan u baahanay searching gareeyo kadib aan kala dhex dago aad iyo aad baan mahadsantahay haddii aad halkan la soo gaadhay fadlan kanaalka subscribe garee kana mid noqo saaxiibada ku xiran halkan